koonfur afrika ayaa maanta dib u tarxiilid ku sameysay janus walus oo ah nin dhashay dalka Poland ninkaas oo xirnaa ilaa iyo 1993 dalka hogaamiyihii hore ee xisbiga ANC ninka lagu magacaabo Ghris Hani waxa uu dilay 1993 dabcan Ghris Hani waa nin ka caanka ah fikiradii caanka ah ee xorriyadda ka dhaliyay dalka koonfur afrika wasiirada kamid ah koonfur afrika ayaa sheegtay in baroolkiisa uu dhameystay isla markaana maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay dib loo celi doono. Today, the 6th of December 2024, the parole period of Janus Walus has come to an end in line with the Constitutional Court decision. Since Janus Walus no longer holds any South African enabling documents, the Department of Home Affairs will be deporting him. This morning, the National Commissioner of Correctional Services will formally hand over Janus Walus to the Department of Home Affairs for deportation. The handover and deportation process is being overseen by the National Joint Operational and Intelligence Structures, commonly known as the NOI Joints, following a cabinet briefing earlier this week. In preparation for this deportation, Cabinet assigned Deputy President Mr. Paul Mashatile, the Minister in the Presidency Khumbudzo Ntshavheni, Minister of Justice Ms. Mamuluko Kupai, and Minister of Home Affairs Dr. Leon Schreiber to visit the family of the late Ghris Hani to inform them of these developments. During this engagement, the government wasiirka horkacayo wasiirka Home Affairs Leon Schreiber ayaa booqday familkii uu ka geeriyooday Ghris Hani oo ay ugu horreysay xaaskiisii ilmihiisii asoo la wadaagay arrinta dalka ka socota koonfur afrika maanta waxay noo tahay maalin aad u xun aad u adag ayuu yiri maruu shir jareed u qabtay wasiirada iyo qaar ka mid ah warbaahinta dalka koonfur afrika. Thank you very much and good morning from my side as well on what is a difficult day for all of us and for South Africa. Allow me to respond to the first three questions that were asked. We can indicate that the deportation will take place today still. So it is happening on the 6th of December. The question around the meeting, let me indicate from the Home Affairs side that as soon as we were informed about our role here, this issue was immediately taken to first the JCPS cluster and then to the full cabinet meeting which took place on Wednesday. You'll appreciate that Home Affairs comes in at the end of such a process. It's the last phase of this particular Constitutional Court ordered process. janus walus ayaa 30 sano oo xarig uga qaatay dalka koonfur afrika iyadoo lagu caddeeyay inuu dilay Ghris Hani oo dabcan caan ka ah dalka koonfur afrika ahaana nin ka mid ah dadka u ololeeyay inuu xorriyad ka dhacdo koonfur afrika jawiga ayaa ahaa sida tan markii airportka laga dhoofinayay iyadoo weliba ammaankiisa aad loo sugay dowladda Poland ayaana fan garaysay qarashka ku baxay in dib loo celiyo maadaama uu gebi ahaanba haysan wax sharci ku sii jooga dalkan ay leedahay. Right now, we're just giving you live images then of OR Tambo International. Of course, we are anticipating Janus Walus, the famed assassin then of Kontowesi's commander then, of course, to be brought then to OR Tambo then in anticipation then of that deportation back to Poland. And that is what we are waiting right now. We believe that the increased police presence right now is in show of that. Let's head on over to Newsroom Africa's political editor, then Dowlada, who is live for us then, of course, at OR Tambo International, to give us a sense of things and where exactly we could perhaps locate Janus. Lukhanyo, I'm not sure if you can hear me, but would you just give us a sense of what is happening right now and what is the latest? Arabella, thank you so very much. Yes, we can confirm. شخصي taariikh weyn ku leeyahay dalka koonfur afrika isla markaana dhaxal weyn uga tagay dalka koonfur afrika aadna ay u xasuustaan waxyaabaha aadka loogu yaqaan waxaa kamid ah in lagu magac daray Ghris Hani Hospital oo ah mid ka mid ah isbitaalada ugu wanaagsan caalamka isla markaana ku santan isbitaalka ugu horreeyay wadna lagu qalay caalamka isla markaana qofkii lagu qalay uu muddo noolaa Ghris Hani ayaa ahaa mid ka mid ah dadkii u dagaalamay xorriyadda dalka koonfur afrika walow uusan ka mid noqon dadka ku raaxaystay ama inuu arko South Afrikada xorta ah waxaana la dilay iyadoo weli South Africa ay ku jirto xilligii gumeysiga.